Waad asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena one by one oo aanu kasoo qaadano wararka iyo warbixinii ugu dambeeyey. Waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyey kooxaha sidoo kale suuqii kala iibsiga oo dhowaan furmi doona. Kooxda Barcelona oo la sheegay inay doonayso weeraryahanka kooxda PSG ee Kylian Mbappe sida ay noqotay xaaladii ciyaartoyga tartanka lagu jiro ee Bellingham, kabtanka kooxda Barcelona oo bedelay go'aankiisii iyo sidoo kale warar kale. Haddii aad ka heshid muuqaalka fadlan like saar subscribe dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe. Sida uu sheegay mid ka mid ah wargeysyada ka agdhow kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay la soo wareegto weeraryahanka reer Faransa ee u ciyaara kooxda PSG iyo sidoo kale xulka qaranka Faransiiska ee Kylian Mbappe, kaasoo ay sheegeen ciyaartoygan inaanu dul qaadan doonin. Ciyaartoyga Lionel Messi oo heshiis kordhin u samayn doona kooxda PSG kadib markuu ciyaartoygani ka badiyay finaalkii koobka adduunka. Inkastoo ay jirto dhaqaale xumo haysata kooxda Barcelona, haddana kooxda Barcelona waxay isku dayi doontaa inay xagaaga la soo wareegto ciyaartoyga Kylian Mbappe. Kylian Mbappe oo jira 24 sano ayaan hadda kooxda PSG la marin xaalado fiican kadib markuu arkay ciyaartoyga Lionel Messi oo finaalkii ka badiyay. Sidoo kalena ciyaartoygan loo soo bandhigay heshiis kordhin oo ciyaartoyga Lionel Messi oo heshiis kordhin u sameynaya kooxda PSG kadib markii la sheegay inay isku afkarteen kooxda iyo ciyaartoygu Lionel Messi inuu u sameeyo kooxda heshiis kordhin maadaama uu dhammaanayo heshiiska ciyaartoyga Messi kula jiro kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan. Haddaba ciyaartoyga Kylian Mbappe ayaa waxaa la sheegay waxyaabihii uu ku diiday waxaa ka mid ahaa in ciyaartoyga Kylian Mbappe maadaama uu Lionel Messi ka badiyay, sidoo kalena ciyaartoygani dalabyadii uu dalbaday kuwaasoo ahaa inay kooxda la soo wareegto ciyaartoyga Harry Kane, tababare Zinedine Zidane iyo sidoo kalena iibso kooxda ciyaartoyga Neymar ayaa la sheegay haddana ciyaartoygan inuu diyaar u yahay inuu ka tago kooxda PSG. Haddaba markii hore kooxdii ugu dhoweyd sidoo kale kooxda uu doonaya ciyaartoygu waxay ahayd kooxda Real Madrid, balse ciyaartoygan ayaa hadda waxaa la sheegay inay suuragal tahay inuu ku biiri karayo ama ay la wareegi karto kooxda Barcelona maadaama ay kooxda Real Madrid isku dayday dhowr sano ama dhowr xilli ciyaareed inay la soo wareegto ciyaartoygan, balse xilli ciyaareedka ugu dambeeyey ama xagaaga ugu dambeeyey ee 2021 uu ciyaartoygani u soo bandhigay ama uu heshiis kordhin u sameeyey kooxda PSG iskana dhagatiray dalabkii ay u soo bandhigtay kooxda Real Madrid uuna saxeexay kooxda PSG sanadda 2025 heshiis ah ayaa arrinkaasi keenaya inay kooxda Barcelona u dhaqaaqdo ciyaartoygan. Haddaba kooxda Barcelona ayaa isku dayi doonta inay la soo wareegto ciyaartoygan, sidoo kale waxaa suuragal ah inay kooxda Barcelona isku daydo inay geliso ciyaartoygan marka ay la soo wareegayso oo heshiiska ay qayb ka geliso weeraryahanka kooxda Barcelona sidoo kale xulka qaranka Faransiiska Ousmane Dembele. oo kooxda Barcelona ayaa isku dayi doonta inay kooxda PSG ku wareejiso ciyaartoyga Ousmane Dembele, sidoo kalena ay lacag u raaciso oo ay kala soo wareegto ciyaartoyga Kylian Mbappe. Haddaba madaxweynaha kooxda Barcelona Juan Laporta ayaa ku riyoonaya inuu ciyaartoyga Kylian Mbappe uu ka mid noqdo ciyaartoyda lagu furi lahaa garoonka kooxda Barcelona oo dib loo habeyn doono dhowaan. Isla kooxda Barcelona kabtankeeda Sergio Busquets oo markii hore la filayay inuu ka tagi doono kooxda Barcelona oo kuna biiri doono koox ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka waddanka Mareykanka ee MLS-ka ayaa hadda la sheegay Sergio Busquets inuu ku fikirayo inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Barcelona kadib markii wadahadal la furay ama kadib markii wadahadal dheer u dhexeeyay isaga iyo tababare Xavi. Sidoo kalena ciyaartoygan uu xidhiidh la sameeyay ciyaartoyga Lionel Messi ayaa waxaa dib u dhacay ciyaartoyga Sergio Busquets tagitaanka uu tagayay horyaalka waddanka Mareykanka. Haddaba go'aankan ayaa waxa uu yimi ciyaartoyga Sergio Busquets oo markii hore uu dhammaanayay heshiiska uu kula jiro kooxda Barcelona bisha 6 ama dhamaadka xilli ciyaareedkan, sidoo kale la filayay xilligaas inuu ku biiri doono koox ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka waddanka Mareykanka ee MLS-ka ayaa hadda waxaa la sheegay ciyaartoygan inuu fikirkiisa bedelay oo ku fikirayo inuu sii joogo kooxda Barcelona. sidoo kale ciyaartoygan ayaa doonaya inuu hal xilli ciyaareed oo kale sii joogo kooxda Barcelona maadaama ciyaartoyga Lionel Messi oo sidoo kalena isaguna hal xilli ciyaareed oo kale u saxiixi doono kooxda PSG. go'aan bedelida ciyaartoyga Sergio Busquets waxaa ka mid ahaa ama waxyaabihii ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa maadaama tababare Xavi ciyaartoygan aad u doonaya mar walbana uu sheegi jiray ciyaartoygan inuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kooxda Barcelona yahayna kabtanka kooxda Barcelona ayaa bedelay go'aanka ciyaartoyga Sergio Busquets. Haddaba kooxda Barcelona iyadoo ay ku jirto kooxda dhaqaale xumo, sidoo kalena waxaa ku adkaan doonta kooxda Barcelona inay la soo wareegto ama ay soo iibsato ciyaartoygii bedeli lahaa ciyaartoyga Sergio Busquets haddii uu ka tago kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan. Haddaba kooxda Barcelona oo labada dhinacba ka fikiraysa ayaa suuragal ah ciyaartoygan inay u soo bandhigto heshiis kordhin, inkastoo ay jirtay inay mar hore ama xagaagii hore ay u soo bandhigtay ciyaartoygan heshiis kordhin ah muddo xilli ciyaareed ah, balse ciyaartoygan ayaa markaas waxa uu go'aansaday inuu ka tago kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan, sidoo kalena uu ku biiro koox ka dhisan kooxaha waddanka Mareykanka. Haddaba ciyaartoyga Sergio Busquets ahna kabtanka kooxda Barcelona ayaa hadda la sheegay inuu bedelay go'aankiisa oo ciyaartoygan uu doonayo inuu muddo xilli ciyaareed oo kale u sii ciyaaro kooxda Barcelona.
haddaba sida la sheegay sabab ka mid ah sababihii uu ciyaartoygani heshiis kordhinta ugu sameynayo kooxda Barcelona ayaa waxay tahay inuu ciyaartoygani markii hore doonayay inuu ka garab ciyaaro mar kale ciyaartoygaasi garab ciyaari jirin ee Lionel Messi oo markii hore sidoo kale waxaa la sheegay inuu ciyaartoyga Messi oo dhamaadka xilli ciyaareedkan ku biiri doono kooxda Inter Miami ee ka ciyaarta waddanka Mareykanka sidoo kale ciyaartoyga Sergio ayaa isaguna doonayay inuu kooxda ku biiro oo mar kale uu ka garab ciyaaro kooxda oo ka garab ciyaaro ciyaartoyga Lionel Messi haddaba kadib markii ay soo baxeen warar sheegayay in ciyaartoyga Lionel Messi uu heshiis la gaaray kooxda PSG oo uu saxiixi doono heshiis kale muddo hal xilli ciyaareed ah ayuu ciyaartoyga Sergio Busquets isaguna go'aankiisa bedelay oo uu doonayo inuu heshiis kale u saxiixo kooxda Barcelona kaasoo ah muddo hal xilli ciyaareed oo marka laga yaabo xagaaga 2024 inay dib u dhacdo bixitaanka uu ciyaartoygan bixi lahaa markaana ay suuragal tahay ciyaartoyga Sergio iyo sidoo kale ciyaartoyga Lionel Messi inay iska garab ciyaaraan iyagoo u ciyaaraya kooxda Inter Miami ay ka ciyaarta ama ka dhisan horyaalka waddanka Mareykanka ee MLS-ka haddaba iyadoo ay taasi jirto haddana waxaa jirtay in toddobaadyadii u dambeeyay ay kooxda Barcelona isweydiiyeen haddii uu go'aansado ciyaartoyga Sergio Busquets inuu ka tago kooxda waxaana jira 5 ciyaartoy kuwaas oo ay sheegeen mas'uuliyiinta kooxda Barcelona inay bedeli karayaan ama ay kooxda la soo wareegi karayaan si uu ciyaartoygaasi u buuxiyo booska ciyaartoyga Sergio Busquets waxayna kala yihiin ciyaartoydaasi ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Sociedad ee Zubimendi ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Wolverhampton ee Ruben Neves labada ciyaartoy ee uga ciyaara kooxda Chelsea khadka dhexe ee kala Kanté iyo Jorginho iyo sidoo kale ciyaartoyga uga ciyaara kooxda Fiorentina ee Sofiane Amrabat haddaba ciyaartoyga Zubimendi ayaa waxa uu ka mid yahay ama waxa uu yahay ciyaartoyga ugu habboon sidoo kalena uu doonaya tababare Xavi balse waxaa ku adkaan doonta kooxda Barcelona inay la soo wareegto ciyaartoygan maadaama uu ciyaartoygan heshiis kordhin u sameeyay xagaagii la soo dhaafay kooxda Real Sociedad sidoo kalena qiimaha heshiis jabinta ciyaartoygu ay gaaraysa ama ay tahay 60 milyan oo euro sidoo kale ciyaartoyda uu doonayo madaxweynaha kooxda Barcelona ee Juan Laporta ayaa waxaa ka mid ah ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Wolverhampton ee Ruben Neves haddaba iyagu waxaa jiray warar sheegayay ciyaartoyga Ruben Neves inuu isagu mar walba ku ciyaaro laba lixaad oo aanu kaligiin lambar 6 garoonka uga ciyaari karin sida looga baahan yahay kooxda Barcelona sidoo kale qorshayaasha kooxda Barcelona waxaa ka mid ah in la soo wareegto ciyaartoyga N'Golo Kanté oo ciyaara kooxda Chelsea N'Golo Kanté oo jiro 31 sano ayaa waxa uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea sidoo kalena ilaa hadda kooxda Chelsea waxa heshiis kordhin ah oo ay soo bandhigtay ciyaartoygan ma jirto maadaama ciyaartoygan dhaawaciisu batay sidoo kalena uu hadda ku maqan yahay dhaawac waxaa suuragal ah ciyaartoygan inuu bilaash ama si xor ah uga tago kooxda Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan sidoo kale ciyaartoyga ka garab ciyaara kooxda Chelsea ee isaguna Jorginho oo isaguna jiro 31 sano ayaa isaguna waxa uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan iyadoo aanay weli ilaa hadda kooxda Chelsea waxa heshiis kordhin ah ama wax wada hadal ah oo ku saabsan heshiis kordhinta ciyaartoyga Jorginho aanay la furin ciyaartoygan haddaba ciyaartoyga ugu dambeeyay ee kooxda Barcelona ay doonaysay ayaa ah ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Morocco sidoo kale kooxda Fiorentina ee Sofiane Amrabat ciyaartoygan oo ka mid ah ciyaartoygii wacdaraha ka muujiyay koobka adduunka ee ugu dambeeyay haddaba ciyaartoygan ayaa la sheegay inuu qiimihiisu aad u sarreyn doono oo uu gaari doono 40 ilaa 50 milyan oo euro dhinaca kale sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Spain kooxda Borussia Dortmund ayaa uga ogolaan doonta ciyaartoyga Bellingham inuu go'aan ka qaato kaasoo ah ciyaartoygan inuu doorto kooxda uu ku biirayo haddaba ciyaartoyga Bellingham oo ka mid ah ciyaartoyda hadda aadka looga hadalhayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda qaaradda Yurub ayaa ciyaartoygan waxaa la sheegay inay aad u doonayaan kooxaha ka ciyaara ama kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska ee Premier League kuwaasoo ay hogaaminayaan kooxda Manchester City, Manchester United iyo sidoo kale Liverpool haddaba ciyaartoygan sidoo kale waxaa jira iyaguna kooxo doonaya kuwaasoo ka ciyaara horyaalka La Liga iyo sidoo kale horyaalka waddanka Faransiiska ee Ligue 1 kuwaasoo kale ah PSG iyo Real Madrid ciyaartoygan ayaa hadda waxaa la sheegay inuu u dhow yahay ama kooxda ugu dhow yahay ay tahay kooxda Real Madrid sidoo kalena kooxdan ay sanadii hore ciyaartoyga wada hadal la furtay kaasoo u sheegtay ciyaartoygan inaan uga heshiis kordhin ah u sameyn kooxda Borussia Dortmund haddaba ciyaartoygan oo la filayo inuu ka tagi doono kooxda Dortmund ama ay kooxdu iibin doonto kahor dhamaadka xilli ciyaareedkan ama ugu dambeyn dhamaadka xilli ciyaareedkan ayaa waxaa la sheegay ciyaartoygan in hadda kooxda Dortmund ay sii doonto go'aanka kaba dambaysta sidoo kale ciyaartoygan kooxda uu doorto ama kooxda uu doonayo inuu ku biiro haddii ay noqoto koox ka dhisan horyaalka Ingiriiska iyo sidoo kale haddii ay noqoto koox ka baxsan waddanka Ingiriiskaba sidoo kale sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Portugiiska ciyaartoyga Enzo Fernandez ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda Benfica iyo sidoo kale xulka qaranka Argentina kaasoo ay tartan adag ugu jireen iswaayihii ugu dambeeyay ama toddobaadyadii ugu dambeeyay kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub gaar ahaan kooxaha ka ciyaara horyaalka Ingiriiska iyo sidoo kale kooxaha ka ciyaara horyaalada kale ee qaaradda Yurub ugu waaweyn ayaa la sheegay ciyaartoygan
inay hadda kooxda Chelsea ay tahay kooxda ugu horeysa ama kooxda ugu dhow ee ciyaartoyga